السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارة شرفت بدن channel كيغا ku xiranay waa walaasheen Hinda Cabdi Rooble. akhyaarta channelkayga ku cusub ma sha Allah waxaan leeyahay soo dhawaada. channelku waa channelkiini, subscribe noo saara. nintiini hore noola joogtayna ee walaalaha ah ma sha Allah akhyaarta sharafta badan ee channelka ku xiran waxaan idin leeyahay sida aad noola socotaan ee noo daawataan ee noo dhiirigelisaan commentigiina quruxda badan leh maaragtay dhiirigelintiina waa wax maaragta aad iyo aad aan idinkaga mahad celinayo. waxaan arkayaa ma sha Allah tabarakallah khiyaar fara badan oo aad qaali iigu ah oo channelka ku soo biiray oo maaragtay halka aan ka arko awaanadooda ma sha Allah tabarakallah soo dhawaada dhammaantiin channelku waa channelkiini aad iyo aad meel weyn wayna wada qaado weeyaan channelkani dhammaantiin isku duubanba waxaan idin leeyahay roog guduuda iyo green ayaan idin dhigayaa xaaladihiina maaragtay halkan aynu ku kala akhbaar qaadanaynaa waynu wada joognaa ma sha Allah tabarakallah waqti walba iyo xilli walba maaragtay waqti baynu wada qaadanaynaa waynu wada caweynaynaa oo waynu wada maaragtay sheekaysanaynaa oo waynu si xog waramaynaa oo xaaladda maaragta waynu la wada soconaynaa ma sha Allah tabarakallah caawa ma sha Allah tabarakallah wax badan ya oo aad u badan ayaan maaragtay ayaan rabay inaan idinla qaybsado waqtiga igu gaaban awgii ya oo aan wax badan ka gaargaari kareynin waxaan doonayaa ya sheeko yar oo ma sha Allah tabarakallah ah oo aad ka wada heli doontaan ya oo dhaqankii hidihii ku saabsan inaan maaragtay idinla qaybsado. bal guurkii hore iyo kamaanta ya muxuu ku kala duwan yahay ama maxaa lagu kala gartaa ama muxuu ku kala fiican yahay ya guurkii hore wanaagsanaa talow mise guurkan imika wanaagsan magaalo soo galka miyaa wanaagsan mise markaynu berisamaadkii iyo miyiga joognay ayaa wanaagsan ya khiyaarta sharafta badan leh kulli Soomaalidu sidoo wada ognayba waa dad maaragtay inagu waxaan nahay dad reer guuraa ama reer miyaha asalkoodii imika magaaladii wada nimi waynaga wada joogna marka ma sha Allah tabarakallah bal guurkii hore iyo guurka iminka xilliyadan dambe ayaan maaragtay wax yar ka oranayaa ama aan qiso yar idinkaga la qaybsanaya oo maaragtay guurkii hore iyo kan aynu bal isbarbar dhigayno labada dhinacba. guurkii hore saw ogtihiinba ya inanta iyo inanka iscaashaqsan ama isdoonaya horta marka horeba doonista ama aragtidu waxay ahaan jirtay oo la isugu iman jiray telefoon muu jiri jirin maxay ahayd toole nambarkaaga ii qormay jiri jirin waan kaa helay may jiri jirin sawirkaagaan meel hebel ku arkay may jiri jirin yacni waxaasoo dhani waa nolosha casriga ah iyo noloshan iminka aynu maaragtay haysano ama iminka la galay ayaa maaragtaa waxyaabahaasoo dhan fududaysay. laakiin beriga inanta Soomaaliduna waaba ku maahmaahday maahmada Soomaalidu ay tahay dumar iyo geel waa la hida raacaa. marka dumarku waxay ahaan jireen wax maaragtaa hidaheeda iyo maaragta halkay kasoo jeedaa inanta maaragta reerka markay usoo kacayso inanta reerka usoo kacda ee dhalinyarada ah ee la arko maaragta inay inan reerkan u joogto shabada oo awr qaaday waxaa la oran jiray reer hebel wale inantaasaa u joogta ya waa lays marka inankii guurdoona ama maagana ah ee meel lagu garanayo ya baa dabeetana loo sheegi jiray. inta kale dhalinyarada intaa ka soo hadha ee waqtigaa yacnihii marka meelaha dee ugu casirsan ee la isku barto ee guurdoonka iyo inanta maxay tolo gashaantida ahi iyo inanka guurdoonka ahi ay isku bartaan waxay ahaan jirtay ya markuu roobku da'o ee maaragtaa
reerku barwaaqada yaalo ee maaragtaa maxay ahayd toolay dee ciirta la qubaya ciirta ninkii garanaya een reerku guureynin een dhibaata jirin yaa een la nabad yahay ee la neg yahay dhalinyaradu waa tii ciyaarta qabsan jirtay waa tii maaragtaa dabeetana reerka inta laga yara fogaado meel maaragta dhalinyaradu isku ballansan jireen ragga geela raacay ee geel jirayaasha la yidhaahdo dhalinyarada dee reerka joogta ee guurdoonada ah ee inamada ah hablihiyo maasha allah aan dee ka dhicin oo iyaguna maaragta inantii shibadiba waatay halkaa isugu bixi jireen halkaasay maaragta inantii inanku iska doonan jireen oy maaragta halkaasay isku baran jireen marka inankii inanta halkaas markay isku bartaan isbarashadoodu may ahaan jirin daf magacaa waan kaa helay wallaahi inay yahay waa qurux badan tahay wallaahi maasha allah waa maxay toole biyahan kaa dhex arkay shalay halkaasaan sawirkaaga ku arkay halkaasaan maxay toole kaasoo raacay may jiri jirin waxaas inantan magaceeda inan kuma weydiin kari jirin ilaa iyo yaa hees laysu dhaco oo ciyaar halkaa laga qabsado waad garanaysaan noocay doontaba ha ahaato ama dhaanta ha ahaato ama jaandheer ha ahaato yaa ama maxay ahayd toolay jafla ha ahaato ama walasaqa ha ahaato dee ciyaarihii soomaalidu ay caanka ku ahayd waad garanaysaan ayaa maxay ahayd toolay inanta laysu dhici jiray inanka yaa marka inanku inanta magaceeda yaa ciyaarta ereygu kusoo gudbisan jiray waad garanaysaan inankii inantii magaceeda suu u weydiiyo yaa maxay ahayd toolay wuxuu kusoo gudbin jiray hees yaa goorta waa habeenimo hore laysu garan maayee haybtaada ii sheeg oo kale iyo inantii u jawaabaysa oo maasha allah tabaaraka allah iyaduna ugu celinaysa maaragta maxay ahayd toole heesta iyaduna oo leh haddaad doonayso aniga inaad barato gurigayaga imow waabahay u kaale yaa saasay marka maasha allah tabaaraka allah hablihii hore ee soomaalidu ahaan jireen runtii waana qaab yacnihii aada hufan oo wanaagsan ayuu ahaa inanta iyo inanka habeenka halka ciyaarta isku bartaa may maxay ahayd toole telefoonna ma jiraan oo la iskala xidhiidhayaa ma jiraan maxay ahayd toole smsyo la isu soo dirayaa ma jiraan meel mar walba lagu kulmayaa waxaa laga yaabaa inaanay reeruhu isku beelba ahayn oo isku meelba kasoo maxay toole wada deganayn inankuna waxaa laga yaabaa inuu dee meel intaasoo kilomitr kasoo ciyaar guday inantuna sidoo kale marka ciyaartaasi dhammaato ee ciyaarta xanaf la-aanta ah ee turxaan la-aanta ah ee dhalinyaradu ku maaragtayay ku caweeyeen ee maaragtayay lagu bogtay ee inankii inantiiba maasha allah codkooda kusoo gudbisteen markay dhammaato waa la iska kala tegi jiray waa la kala dareeri jiray inankaasi haddii xilligaa iyada ah uu reerkaa caawa inankaas ama inantaas ay ka timi ay geedi galo oo ay guuraan oo reerkaasi ay guuraan oo meesha ay ka guuraan waxay ahaan jirtay maaragtaa in laysa sugo oo la sugo waqti kale oo reerkaas iyo inankaasi inantaa maskaxdiisa kamay bixi jirin caashaqa habeenka halkaa yaa labada qof ee is caashaqdaa halkaasay dunta isku xidhan jireen dadka ha isxoogaal waraystaan inanku maaragtaa inanta wax ka ogog laha raaraadiyo hadday dayo ha yidhaahdo inantaas oo reer halkaasa oo halkaa ka timi niyaa garanaya inantuna dee habluhuna maasha allah tabaaraka allah hablo xishooda oo maaragtaa xayaato badan oo maaragtaa maasha allah tabaaraka allah aan laga sheekeyn karaynin hablaheena soomaaliyeed mar walba waa hablo aada iyo aada iyo aada u hufan oo u wanaagsan oo qiimo badan leh yaa ayay maaragtaa ayay yihiin runtii marka laga hadlayo hablaha soomaaliyeed waa hablo qiimo iyo qadarin iyo maaragtaa wanaag fara badan aada ilaahay maaragtaa cise u dhameeyey dhan walbay tahay hablaha soomaalidu karti hadday tahay qurux hadday tahay maxay ahayd tooley karti hadal
iyo karti kale oo wax xoog iyo maxay ahayd toole wax lagu qabsado maasha allah tabaarakallah hablo Soomaaliyeed hablaha adduunka jooga hablaha ugu qaalisan inantu marka halkaa ya ay halkaas ayuu inanku maaragtaa kasoo raadin jiray koox kala jirta iyaduna oo inantu iyo inanku aanay ciyaar isku baranin ama inantiyo arigii la joogta oo maxay ahayd toole arigii daajinayso arigii la joogta ay iska soo horbaxaan inankan oo isna geel wada ama deedhaan wada ama maxay ahayd toolay halkaa maaragtay dee si uun lagu kulmo dabeetana inantaasi geed bay intii xagga shisho kasoo istaagto ayuu inankuna xagga soke geedka ka istaagi jiray hadday xaggaa hadduu usoo dhaqaaqo inanku yaa xaggaasi uga sii dhaqaaqi jirtay oo dhinac kale soo mari jirtay ee geedka maasha allah hablo hufan oo sharaf badan bay ahaan jireen yacnaa hablaha Soomaalidu imikana yihiin runta marka laga hadlo dabeetana halkaasaa inanka inantu isku baran jireen lagu kala akhbaar qaadan jiray lays odhan jiray haye halkeebaad degantihiin reerkeebaad tihiin dee akhbaarta lays weydaarsan jiray oo lays maxay ahayd lays xog wareysan jiray oo inanka inantu halkaa ku ballami jireen oo dabeetana haddii de markaa aanu jaanis badani jirin oo lagu wada sheekaystaa oo dadkan qof walba dee hawlbaa maaragtaa u taala isna waxaa laga yaabaa inuu geel wado iyaduna inay ari wado inay maaragtaay dee dad maaragtaay wada mashquulsan ay yihiin laakiin waxay odhan jireen inanta halkaa duntu igu kaa xidhan dadka kaa socdayoo duntu igu kaa xidhan buu odhan jiray halkaasoo maaragtay inanku inanta maxay ahayd toole maskaxdiisa ku qaadan jiray sawirkeeda iyo inantaasi say u ekayd iyo inantaasi maasha allah qiimahay lahayd iyo dee wax walba halkaasoo maaragtaa maskaxdiisa ku qaadan jiray dabeetana kulanka labaad ama dee waa la ballami oo waxaa lagu ballami meel ciyaara oo maaragtaa dee laysu si wanaagsan dee loo wada boodo oo laysu xog wareysto oo chance badan ka jiro oo haddii la doono marka maaragtay ciyaarta dee laga soo la kala tago maxay ahayd toole ciyaarta laga rawaxo gaar laysula foqo ama berri halkaa xilligeeda oo cadceedu halkaa ay joogto bartaa isugu keenkeen bay ahaan jirtay dabeetana halkaas ayaa sheekada lagu dhamay jiray waxaa lagu ballami jiray inantii dee habluhu lababa way ahaan jireen ama guurku lababa uu ahaan jiray in inanta lala baxo oo reerkooda laga qaato oo yacnihii intuu ninkii dasaa markay u heshiiyaan uu yidhahdo anigu waan kula baxayaa waxaan doonayaa inaan caawa xilligaa markay tahay aan gurigiina kuugu imaado oo aan maxay ahayd toole gurigiina kaa kaxeeyo oo aan dee sidaa kugula tago reerkaygii ku geysto oon reerkaygii marka ku geystana ku hibaysto oon hiba reerkiini u imaadoon soo weydiiyo oan idhaahdo inantaas baan maxay ahayd toole wataa waxaana doonaya in reerkoodii loo akhbaar celiyo la yidhaahdo inanka hebel wuxuu inantiinii annaga hayna ama annaga inantiinii calmanayoo inankayagiibaa maaragtaa ay doonayaan inay isguursadaan gurigayagay joogtaa sidaasaa maaragtay iyadoo hibo la sido hibo oo lacag maxay ahayd toole go' lagu keenay iyo geel iyo ari iyo dee marna taagtaa marna tabartaa ah oo qof walba dee maaragtaa aan xadidnayn ayaa maxay ahayd toole lagu inanta laga bixin jiray dabeetana sidaas waalidkeedina mar hadday dee inantii inankaa calmatay lagu ducayn jiray oo lagu guurin jiray inantii oo reerkeeda maaragtay maxay toole ninkeeda loogu meherin jiray oo dabeetana aroos gaaf leh loo dhigi jiray oo dhalinyartu isku aragto oo halkaa looga garaaco oo nin waliba codkiisa macaane dabacsan uu kusoo gudbiyo oo halkaa maaragtaaye mid inta loo kiciyo dhalinyarada halkaa maaragta kamanka loo garaacdo oo gaafa toddoba ayaamooda la tumi jiray la tumi jiray oo 7 habeen loo soo jeedi jiray ma garateen maasha allah tabaarakallah marka dhaqanka Soomaalidu saasuu runtii ahaan jiray inan kalena waxaa jirtay iyaduna inta reerkii
ay maaragtaa inankii saa markay u heshiiyeen inantii ciyaarta iyo inankii ciyaarta ku kulmay ay intay heshiiyeen ay ku tiraahdo walaalo reerkayaga iga soo doon haddaad doonayso guurkeenna ood aniga ay doonayso adduunyo wixii reerkaygu kaa codsadaan ayaad bixinaysaa reerkayga isku keenkeen oo dabeetana inantii reerka laga soo dooni jiray oo ninku waxaa jirtay 100 geela iyo baarqab iyo qori intaa uu ka bixin jiray intaaba uu ka bixin jiray 100 geela ya 100 geela wax yar maaha wax waqti dhow la tabcay maaha wax waqti sahal lagu tabcay maaha ya geel 100 iyo baarqabkii awrka ahaa ee geela ku jiray iyo qorigii uu geela cadowga kaga ilaalin jiray ninka iska leh intaba inantaas u dhaafsan jiray qiimahaasay hablaha Soomaaliyeed lahaayeen haddana leeyihiin runtii qiimaha ee waqtigun baa casriga dhalay oo marba dee waqtigii lagu jiro ayuun bay maaragtay xaaladdu noqonaysaa oo dad adduunyadu saas isu bedelaysaa laakiin dhaqankeennii Soomaalida ee Soomaalida reer guuraaga ahayd markaynu ka waramayno runtii saasay ahaan jiray guurkoodu inantaa inta loo soo golo fadhiisto ayuu iman jiray inanka reerka tolkii inanta caashaqsan tolkii ayaa isa soo raaci jiray oo badan oo nin iyo 2 iyo 3 toona ahayn dabeetana reerkaa loo iman jiray adduunyadana reerku way codsan jireen intaasaan inantayada u qalantaa inanta reerka ay maaragtay maalintaa gasho ee sidaa lagu guuriyo ya ee maasha Allah tabaarakallah ay sidaa reer ku guri gasho reer ku noqoto ee reerkaa dee inantaa uu 100ka halaad iyo baarqabka ka bixiyey iyo qorigii uu ku ilaalinayay ee caydh engegan uu soo istaagay ninkaasi ya isagoo dee maaragtaa inantaa quruxdeeda iyo inuu caashaqaa galay ya uu dee maaragtaaye ka bogsado inankaasi uu u sameeyey inuu maaragtay intaa bixiyo ya maasha Allah tabaarakallah inantaasi inan diraas weyna oo reerkeedii ku nagaata oo gurigeedii dhaqata oo ninkeedii iyo reerkeediiba u samirta oo ka soo bilowda dee meel hoose ka soo bilowda nolosha oo ninkaas iyada reerkeedii iyada nolosheeda inuu guursado la noolaado ka doorbiday hanti wuxuu lahaa dhaafsaday iyada waxay ahaan jirtay inan hanata oo haysata ya inankaasina dee dheeman beegtiisa ka ahaan jirtay oo dee may ahayn hablahan dalqada lagula soo degdegayay 2 kelmadood hadii la isdhaafsadaba la odhanayo furaya maxay ahayd toolay waxay ka ahayd isaga waa bar subagahe yani bilo qoran beegtiisa ka ahayd inantaasi deeman iyo dahab iyo luul way uga qaalisanay ilayn waa tuu huray hanti wuxuu lahaa waa tuu huray hanti wuxuu lahaa marka maasha Allah tabaarakallah ninkaasi muu hayn nin ciyaar reerkiisa ku dumiya dalqada afku kama xadi jirin ilaalin jiray wala isku gaboobi jiray dhaqankii Soomaalida hore u fiirso eeg ya way yaray oo 100kiiba 2 iyo 3 bay ahay taariikhda bal adigu awowga maxay ahayd toolay walaaladii awowga aabaha dhalay walaaladii bal hadda adigu dib historigoodii u raadi oo waxa tiraahdaa eedaday ya ama ayeeyday aniga hooyada ayeeyday
ayay aniga hooyadeed iyo walaaladeed bal adigu taariikhdooda dib u raadi. inan la soo furay way yaray, waxaana loo soo furayna waxay ahayd guurkoo qiimo leh iyo guurkoo munaasaba. qadar weeye horta furitaanku, waana wax ilaahay xalaaleeyey. inagu furitaanka maaragta waxba kama sheegayno, laakiin waxaan wax ka sheegaynaa waxay tahay yacnihii siduu guurka soomaalidu uu berigii hore qiimo fara badan u lahaa, maantana aanu u qiimihii meesha ka baxay. oo inantii inankii yaa bal hadda kii maantana aynu yaro fasirno, inankii iyo inantii is arkaaba waan ku arkay, waan ku caashaqay. inantii inankii wuu arkayaa, wuu caashaqayaaba. iminkuu telefoonkeedii qortay, iminkuu soo garaacayaa, iminka wuxuu sheegay inuu jecel yahay. waa iminka ayuu ku bartay, wuxuu ku yidhi walaalo telefoonkaadaan u baahanahay, maxay ahayd tolina kula soo xidhiidhaaban doonaya, waan kaa helay. okaa telefoonkii baabad u qortay. daqiiqadaha ku xiga ee uu ku soo garaaco, noloshaadii dhanba barbuu iyuu soo ogaaday. horta sawirkaagii soo arag, maxay ahayd tolay meel kaloo layska maxay tolay laga xidhiidho baraha bulshada kaa soo dhex qabay, waaba ku yaqaanaaba. ha ku yaqaanee haddana daqiiqadiiba wuu ku caashaqay. waa dhalinyarada iminka tusaale, markuu labadii dhalinyarada ahaa ay sidii isku caashaqaan, inantina laga yaababa inay iyaduna la qaadato caashaqii, oo ay inankaa maaragtay tiraahdo de waa maxay ahayd toolay nasiibkaakee kuu soo baxay. oo dabeetana ilaa waa laba dhalinyaro ah oo labaduba maaragtaa guur uu yahay hadafkoodu, ee labadii maaragtaa markaa ay hadafkoodu uu guur saxiixa yahay, yaa dee waxay isla qaataan si fudud bay horta isku barteen. hadhow waxaa laga yaabaa inaanay inantaa aanay wax badanba inankaa ku xirin, iyadoo wanaagsan runta marka meelaha qaar laga eego wax aada iyo aada u wanaagsan. diinteenuna ammaantay in guurka la fududeeyo, oo maaragtayay habluhu iyo inamaba aan guurka la adkaynin, oo maaragtaa dhalinyaradu ay hore u guursadaan. waxaa yaraanaya maaragtaa dhibaatooyin badan baa yaraanaya markay dhalinyaradu ay hore u guursadaan. laakiin haddana markaynu ka eegno dhinaca kale, waxaad is odhanaysaa degdegan guurka ayaa keenaya furidda degdega ah. inankii inantii isguursaday ee maanta maaragtaa aadka isugu qanacsanaa, ee iminka isguursaday dhowr cisho dabadeedba yaa ha ugu badnaato xagga dhalinyarada, xagga inamada cilad baa imanaysa. waa taasi waa la kala booday. inantiiba iyo inankii iminka isguursadayba waabay kala boodeen durbaba. inankii dalqadu meelba kama saarno. haddaad saa igu tidhaahdo ama sidaa aan idhi aada samayn weydo, dalqadiisu waa ushiisaba. usha keliyuu isticmaalo iyo hubka uu sitaa waan ku furayaa, furayaabaa hub u ah. dhowr jeer marka laysku dhacee mar iyo 2 iyo 3 kelmada la isdhaafsadana inantii waaba la furay. halkaa maxaa kaaga cad hablihii hore iyo dadkii hore ee soomaalida inay ahaan jireen dad guurku agtooda uu maasha allah qaali ka yahay, oo inantu iyadoon wax baranin, oon gaashaan qaad noqonin, oo aan maaragtaye gashaanti noqonin,
oo aan reerkeeda ku filnaan karin may guursan jirin. halka iminka inan yaroo maxay ahayd toolay iyo dhowr iyo 10 jiraba oo aan waxba badan noloshaba ka garanaynin ay guursanayso, oo dabeetana hadhow hataa hadduu ilaahay awlaad siiya ilmo dhalay noqonayso, oo dabeetana laysla maxay ahayd too laysku basharmayo iyadii ilmihii yaraa iyo ninkii oo waxba is wada dhaandhaamin. guurka laftigiisu in maaragtay loo meel dayo oo qofku isagoo waay araga oo weyn oo wax badan xeerinaya oo nolosha garanaya oo maaragta wax badan fahansan oo intaanu guursanin horta garaad leh oo caqli ku filan leh oo maasha Allah tabaarakallah maskaxdiisu ay maaragtay maskax kala go-an tahay oo xumaha iyo samaha garanaysa oo xaqa lagu leeyahayna garanaysa, xaqa maaragtay reerku ninku ku leeyahay garanaysa, oo xaqa maaragtay awlaad haday u timaado garanaysa. markaasi horta wanaagsanta inay inta guursato. inan yar oo caruura oo 16 jir 15 jir 14 jir ah oo guursatay xaqiiqda marka laga waramo oo guursatay waliba ninaan isaguna inta da'da dhaafsiisnayn oo garaad badan ku dhaamin guursatay waxa weeyaan wala isku basharmaya. dhibaata halka ka imanaysa waa taasoo durbaba wataa la kala booday, burbur qoys baa dhacaya. haddii caruurtii markaa labadii dhalinyarada hay isguursatay ay wax dhaleen, dhashiba xitaa iyagii kaliya ma dhashiba xitaa saameynaysaa kala tagoodaas iyo burburka qoyska ku yimid. iyagii ma aha xataa qura xitaa dhashoodii bay saameynaysaa. dhashuna waa mustaqbalka iyo aayaha dad leeyahay maaragta la sugo, waa midhaha, waa geedka la beeray dabeetana inta la waraabiyey la doonayo berri midhaha uu dhalo in la gurto oo la cuno lagu noolaado. waa ubadka runtii. ubadku waa mustaqbalka dad leeyihiin, waa mustaqbalka dal leeyahay. awlaadu waa yacnihii waa muhiim. marka muhiimadii baa meeshii ka baxaysa oo burburaysa marka qoyskii burbur ku yimaado. qoys dhalinyaro ah oo iyagoo yaryar isdoontay oo iyagoo maaragtay caqligooda ku filnayn oo inankina aan waayo aragnimo lahayn oonu aqooninba xitaa maxay toole xuquuqda ay tahay gabadha ay kugu leedahay, gabadhina aanay xuquuq sawjeenka aqoonin oona garanaynin. halkaa waxaa ka imanaysa dhibaato ilaa dee inuu ilaahay uga naxariistay mooyaane. marka waxyaabaha reeruhu ku burburaan bay runtii ayay ka mid tahay. caawa inagoo guurkii hore miyiga ama soomaalida wax ka soo qaadanay, ka maantana runtii oo ka maanta inagu maaragtaa dee kaa hore iminka waa mid laga yimiba, laakiin kan iminka runtii oo dee kaa hore tusaale iyo maaragtay mooyaane dee maanta ka iminka ayaa runtii wanaagsan in maaragtaa xoogga la saaro ama wax laga saxo ama wax laga maaragtay yidhaahdo. marka kii horena wuxuu baynu soo qaadanaynaa tusaale. marka tusaalahana kii wanaagsan baynu ka qaadanaynaa. marka tusaalaha dadkii hore ay lahaayeen wanaagsani wuxuu yahay inay inan garaad la guursan jirtay, inan gaashaan qaadna guursan jiray, dabadeetana la isku gaboobi jiray oo godka iilka mooyee aanay meel kale ku kala tegi jirin. godka iilka mooyee cadho mayna kala geyn. nolol kasta way isugu samri jireen. maxaa yeelay qof waliba miisaaniyadiisa intii uu lahaa inuu culaysiyuu ka badiyo mooyaane kamuu khafiifin jirin. marka yacnaha runtiina waa sidaa. guurku waxa marka guur lagu sheegayo waa isu tanaasul, waa isxaq dhowr, waa isxeerin, waa wax wada qabsi, waa wax badan oo weliba ragga
inta ugu badan mas-uuliyadda ragga ayay saaran tahay oo reerka dee haysmadiisaba gacanta in lagu hayo reerkaasi dhaqnaadaba waxaa ka shaqaynaya maaragtay haynaya ee furaha dhanba ahba waa ragga. marka maanta ama caawa anigoona casharkii maaragtaa ama intii yareedaan idinku soo talagalay oon islahaa walaalaha la wadaag aan maaragtay intaa ka badinaynin insha allah intaasaan inoogu soo gabagabeynayaa. haddii allaha awoodali ka dhigo bal maalinba wax ayaynu maaragta kasoo qaadan doonaa dhaqankeenii hore iyo dhaqanka maanta, ama ha noqoto dadka qurbaha jooga iyo dhalinyarada qurbaha iyo ama dhalinyarada wadankii iyo dhalinyaradii hore ee soomaalida iyo soomaalidii hore ee miyiga degi jirtay. marka insha allahu tacaalaa wixii maaragtay aynu ilaahay iga garansiiyo hadduu allaha awoodali ka dhigo waxaan doonayaa inaan idinla qaybsano wixii aragtidayda ah ee aan maaragtay fikir ahaan ka qabo ama aan isleeyahay halkaas ayaad maaragta wax ka odhan karaysaa. marka aada iyo aad baan maaragta inta channelkayga ku xiran idinku mahad celinaya dhammaantiinba. waxaan idin leeyahay maaragta meel kastoo joogtaan waqti kastoo idin tahay iyo maxay ahayd toolay saacad kastoo idin tahayba waxaan idinkaga tegayaa nabadgeliyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo kulanta dambe oo xiise leh insha allahu tacaala.